xaliimo sheekh cali iyo aasiya maxamed xuseen waxay ka mid yihiin dadkii uu saameynta ku reebay tacaddigii naxariis darrada ahaa ee ka dhacay deegaanka. xaliimo sheekh cali waxay jeeloogaadeen ku jirtay muddo 10 sano ah halka aasiya maxamed iyaduna jeeloogaadeen ku jirtay muddo 2 sano ah. haddaba haweenkan oo jeeloogaadeen loogu geystay tacadiya iyo jirdil bini'aadanimada ka dhan ah ayaa waxaa qaabilay oo ay kulan la qaateen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo uu muujiyay inuu aad uga xun yahay dhibaatada loo geystay. muddada 10 sano ah dhibaatada il aanan ka soo marin ma jirto. markii dhibka nala geeyo oo biyaha lagu ragtay way dhacdaa meelahaas nala geeyay weligan halkaas aan ku qidaadnay ana laga qarin jiray markii hay'adaha noo yimaadaan ana la dhoomin jiray waxaan ku dhahay habeenkii intii nala soo bixiyay markii maxaabiista kala la xareeyo ayaa nala mari jiray markii nala maro ayaa nala lagu darbin jiray bilaacad baa nala lagu dhori jiray adoo suuliyada xaarka biyo ka soo durday ayaa nala lagu dhori jiray markii nala lagu dhiro ayaa hadana meel yar oo qaabana la gelin jiray dadka waa laga kantarooli jiray dhibaato far badan baa halka naga soo gaadhay keebacdi dadka markii cafis loo fidinayo waana laga qidaadi jiray waana la qarin jiray weligeena ma naan arag mas'uuliyiin iyo dad cafis bixin hayay waxa meena weligeena arag marka xabsiga dhexe dhibaato far badan baa tiilay dumar iyo ragba saameyn bay ku lahayd dhibaatadii tiilay waxa iigu dareed gabadh reejareeda oo 2 ilmood mataana uurka ku waday laba ilmood mataana dhari doontaa gabadhaas ayaa lagu dhuray dhiiga haweenka oo la ururiyo waa lagu dhuray xaarka biyaha ka soo dareeray waa lagu dhuray gabadhii halkiiba muraadi intay ijiintii wad qaysay halkii ku fooratay 2 ilmood mataana wiilala ka soo daatay iyadii wiilashiiba waa la aas adigu meedkoodii waa laga bixiyo meel la geeyo ma garanayo marka dhibaato far badan baa meesha tilay 270 ilmood caruur ah oo hooyooyinkoodii iyagii biyo madow oo afka ka saaray insan jirin ayaa meesha yaa ku baabaaday marka dhibaato far badan baa tiilay aniga gacantiisa igu dilay cabdi ilay gacantiisa igu dilay wajigayga madmadowga ka muuqda waxaas waa dhibaatadiisa uu geystay iyo gacantiisa igu dilay way kabiisi buudka way shirkayga feed aan 3 jeer jabin mayna lahayn marka dhibaatada faraha badan ayaa naga qabsatay xabsiga jeeloogaadeen kuma la magac baxay marka dhibaatadaas meesha tiilay dibkii sida hadaba waxaan yeeshay dhibaato xanuun baa igu soo baxay intaan xabsigii joogay 2 jeer bay dhaxan igu dhacday dawada inta yiraahdaan dawaanu dhakhtar baan ku geenaynaa oo la isoo tusay la isoo celinaya nafti ilaahay haysto baan baxaynin dhibaato ma inaan noo nagayn marka dhibaatada faraha badan baa meesha iga soo martay 2 jeer bay dawad iyo adigu tiin bay igu dhacday tiin baydii anigoo dawadii tiin bayda ay imeysteen oo diideen in qumaati la dhakhtariyo ayaa haddana maxaan ku dhahay bilaacad iyo qidaad iyo dil intaba isugu kiidari jireen hal ugu weeyay aan alif mali suuday marka aan aliftana qiraal maanan ku ahay aan gool qarxay qadaar laga baxay 6 saac weynaba loo yaraan bayaan umulka qab xalaash waa halkan faast marka meel buura laga tagay jigdil badan baa la adeegsaday dhabarkan ka jabay kadib haddana xira la keenay labada lugood bas la kala xidhay dab la ishay marka firq dhabashada adu kale gacantan baan haddaan dhakhtar waay saasaan u qariyo sirkaadada qarban si dabka markaan u leeyahay marka gacanta xagan iga rabay taas weeyaan shaqeynayso marka wallahi dhibaato aad badan baan ayaan soo maray kadib haddana dhuumaal baa la jeeloogaadeen la igu geeyay muddo 2 sano aan ku jiray marka dabku meesha yani bacda iga dhacday gacanta saa ku dhaw meesha diir ku raacay aad bay noqotay meesha gudaheeda iyada iyo bacdi iyo jiirkii ah yay markii dambe dhuumaal iyo wixii manqaska ku wada gooyeen bacdi iyo jiirkii marka waxay igu bogsaday telefonkii xilliga qabowga kala ah waan isbedelayaa waan xoqayaa xilliga maartay ay aan cadceedo kulusha kala ayadana sidoo kale waan xoqayaa way waxa ku geystay adu kale rag la 7 nin baa laakiin 2 nin ayaan caadi uga garanayay marka dhibaato aad gaadhay waan qormay markii dambe marka waan isku ka goynay hilibkii iyo bacdi isla goynayeen jirkeyga wada calaamad waa wada injir waa wada rafaad bacdi baa gudaha iga gashay adduunyada waa saasan kaga samraan oo gabadh yarashay tamjin marka firqashadii waad aragtaa nawrada sanka ay ku yaalada waa qaraxadii soo kurkayga taagan xagan aan ka gubnay dhinaca inta dhulka dhiga ma seexda marka waxaan u baahanahay adigu Itoobiya dhakhtar far badan baan maray waxa la igu yiri dawadaadi ma taalo Itoobiya ma taalo India iyo maxaan ku dhahay Turkiga labada anba dawadii baa intuu noqday xinjir fadhiday iyo hilib uu noqday hilibka wixii baabiin lahaana wadankeena
dawadiisa lagama helayaa la yiri. haweenkan oo dhibaatada soo gaaray dalka wax laga qaban waayay ayaa wuxuu madaxweynuhu u ballan qaaday inuu geynayo dhakhtar kasta oo ay ka helayaan caafimaad buuxa taasoo qayb ka noqonaysa dadaalada xooggan ee dawladdu ugu jirto inay boogadhaydo dadyawgii tacadiyada loogu geystay jeel ogaadeen iyo guud ahaanba deegaanka. gabdhahana ma noqonayaan kuwii ugu horreeyay ee sidoo kale xukuumaddu u qaabisho.